Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaaw hambalyo hambalyo hambalyo. Waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan ku dhaho congratulations iyo hambalyo. Sababtoo waxaad samaysay tallaabadii ugu horeysay oo dhinaca online-ka ama digital marketing-ka aad usoo qaaday. Waxaa muhiima inaad ogtahay investmentiga aad samaysay inuu yahay investment oo macnaha markii aad koorsadaan aad qaadato ood ogaato investmentigaas wix kaaga soo baxo ay yihiin wax weyn. Sababtoo online waa meesha ugu weyn oo dadku macnaha adduunka dhan oo u socdo. Marka tallaabada ugu horeysa oo aad usoo qaado waaye dhinaca adduunka oo u socdo. Marka hambalyo. Haddii marka aan wax yar kuu sharaxo oo koorsada ku saabsan anoo macnaha kusii dheeraanaynin. Koorsada marka koowaad waxaan rabaa horta inaad fahamtid qaab dhismeedka koorsada oo macnaha aan u diyaariyay koorsada. Koorsada marka waa advance oo iskugu jirto advance iyo qof oo ku cusub Facebook ads ama marketing ku cusub iyo qof macnaha marketing hore u sameeyay laakiin xoog waxay ka qaldanayeen iyo qof advance oo naftigiisa advance oo hore u sameey jiray. Marka haddii marka qaybta koowaad aan galno oo macnaha soo dhaweynta iskaraaf qaybta labaad ayay ka bilaabanaysaa macnaha macmacaanka meeshaan ayuu ka bilaabanayaa. Qaybtan waa macnaha Facebook iyo business manager. Haddii marka adiga aad haysatid business manager oo macnaha aad haysatid ganacsi oo website aad haysatid oo waxaas oo dhan aad haysatid ayaad macnaha 99% boqolkiiba boqol waa u baahantaa mar walba inaad moojiladan akhrisid oo macnaha moojilada aad fiirisid dhageysatid. Cashiradan kulligood macnaha waa videos cashiro ma jiraan oo warqad aad ka akhrinaysid ama PDF cashiraha waxa waa cashiro oo macnaha aad aniga fiirsanaysid oo aniga shaqada aan qabanayo kadibna adiga aad computerkaaga la kala baxdid adiga aad samaynaysid. Marka waxaan rabaa marka inaad ogaatid cashiradan waa cashiro haddii aad beginner tahay iyo haddii advanced aad tahay labadaba aad u baahan tahay in aad iska xaqiijisid. Marka qaybta koowaad waxay ku saabsan tahay business ad manager iyo business manager iyo ad account iyo Facebook page iyo waxaas oo dhan ayay ku saabsan tahay. Marka haddii aad cashirada aad ka boodboodid waxaa laga yaabaa inaad xoogo confused noqotid. Marka please cashirka adigoo moodulka fahmin moodulka labaad u bixin. Qaybta labaad haddaadna fahmin qaybta saddexaad aadin because markaas waa sii wareeraya. Haddaad sii wareertidna wixii waa haddaan nacdidna meeshaas ayaa kugu dambaysa waxaa leedahay online-kan iyo waxaan iyo marketing-ga waxaa maba shaqeeyaan aad leedahay. Anaana promise ku siinaaba hadda oo guarantee waa taas inay kugu dhacayso. Haddii macnaha aad ka boodboodid waa adigoo higaadii aqaanin oo haddana macnaha sidii alifkii loo qorayay ba'dii ta'dii tha'dii jiimkii adoon wix kuu fidhin oo higaadii kuu fidhin oo macnaha lagu dhaha waayo kaalay waxaan ka baxaynaa juska labaad asbac ayaan gelaynaa ama juska labaad iyo bilow iyo akhri lagu dhaho kale waxaad leedahay maxaa ka hadlaysaa. Marka cashiradan sababtan iskugu xijiya waxay tahay moodulka koowaad waa macnaha moodulka labaad ayaan ka wadaa oo qaybtan waa macnaha Facebook markii aad samaynaysid waxa aad u baahan tahay iyo waxaas aad u baahan tahay sababtaad ugu baahan tahay iyo sida loo isticmaalo. Waxaa ku soo hartay marka moodulka saddexaad oo Facebook audience iyo pixel. Facebook audience iyo pixel waxa waa markii aad haysatid website marka waxaa jiro arday oo waxaa jirto advance oo website haystaan oo digital marketing wax sameeyaan iyo qaar waxaa jiro ganacsato oo website-kooda ku ganacsadaan. Marka waa ina macnaha qasab in cashiradan ay wataan dadkaas oo macnaha website haysto. Haddaadna website haysan cashiradan sii akhriso sii faham dhageyso sababtoo waxaa laga yaabaa marka in qof website haysto oo ku dhahanaya waxaas ii sameey ama waxaa laga yaabaa adiga naftiga inaad website heli doontid in the future. Marka cashiradan waxa waaye website haddaa haysatid ayay macnaha qaabkii website-kaaga marka waxay siinaysid ugu isticmaali lahayd ayay ka hadlayaan. Waa macaamiisha website-kaaga imaato inta maray imaadaan sida macnaha dib xayeysiin loogu tuso sida macnaha ayaga dadka website-kaaga imaada dad la nooca loo create garay. Marka cashiradan haddii aadna website lahayn waad macnaha waa kormari kartaa oo macnaha waad wada dhageysan kartaa because cashirada macnaha website-ka iyo pixelka kaliya ma laga hadlayo waxyaabo kale oo macnaha marketing-ka iyo Facebook-ka iyo qaabka xayeysiinta u shaqeysa waxyaabo badan ayaa markaas fahmi doontaa. Haddii xataa aadna website lahayn waxaan kugula talinaa inaa weli aad sii fiiriso cashiradu macnaha website-kan iyo pixelkan iyo waxaan waxay yihiin haddii aadan weligaa maqlin waayo. Haddii aad taqaanid website aan haysan oo noo baahnay inaad dhageysatidna waa another case. Waxaa ku xigta markaas hordhac oo qaybta afraad macnaha qaybta afraad hordhaceeda waa qaybtan waa qaybta aad macnaha u baahan tahay
inaad horto boqolkiiba boqol aad gelisaa 2 mar 3 mar haddii midkiiba aad fiirsan kartid fiirso, because qaybtan waa qaybta kala saarto dadka markay Facebook wax ku xayeysiiyaan ad account-kooda laga xiro, sababta loogu xirin aan garanaynin, iyo macnaha waxyaabo fara badan oo waxaa jiro oo caqabad ku hor istaagi doonto oo qof kasta oo marketing ah ama Facebook ku ganacsada xayeysiin ama dad wax u sameeya ama asigu wax ku samaysta oo boqolkiiba boqol uu ku dhigi karo maanta haddii 2,000 oo qof oo Facebook xayeysiin ku samaysta dee meel iskugu keeno loo yaa Facebook ad account laga xiray, yaa Facebook laga baangareeyey, boqolkiiba 99 ama boqolkiiba boqol kulligood gacantay wada taagayaan. Haddii la dhaho yaa 2 mar laga xiray, 3 mar laga xiray, waxaa laga yaabaa boqolkiiba 99 in ayaga dhan gacanta wada taagaan. Marka waxaa jirta marka haddii aad Facebook hore lagaaga xirin oo Facebook aad rabtid inaad macnaha wax ku xayeysiisid, waxaa qasab ah in lagaa xiri doono. Surprise inaadna noqon, laakiinse in lagaa xirayo adoo og aadana waxaa la sii sameeyaa qaabkii looga hortagi lahaa. Anigoo kula hadlayo 6 mar aa laga xiray Facebook. 6daas marna macnaha waa 2015 ilaa hadda intuu dhaxayso. Marka Facebook waa lagaa xiraa. Sababta lagaaga xirayna macnaha waa markii lagaa xiro ayay soo baxaysaa. Marka waa soo ceshan kartaa wax weyn maahan, laakiinse waxaa fiican in macnaha mar walba aad la socoto iyo in lagaa xirin. Marka qaybtanu waa hordhaca inta aadna xayeysiin create gareynin, because qaybta afraad waa qaabkii xayeysiinta aad ku create gareyn lahayd. Marka cashiradan please, cashiradan faham tartiib tartiib, ha isboobsiinin. Cashirada markaa qaadanaysidna ha ka dhigin musalsalka oo TV-ga laga soo deeyo ama Netflix asxaabta ku xiran. Please saas camal ha u treat gareynin cashiradan. I know in investment is gelisay, I know in macnaha waqti oo macnaha sometimes on waqti jirin. Marka please haddii aad macnaha hal saac aa heshid maalinta aa haysatid, halkaas saac hal module lesi wax dhan ha dhexmarin, hal week gudahood oo cashirka dhan inta ku dhamaysid kadib banaankaas u istaagin tartiib tartiib, because waxa waaye boqolkiiba 99 haddii aad cilmi ama wax aad fiirsato ama wax lagu baro oo 24 saac kasoo wareegato, waxaa laga yaabaa boqolkiiba 20 inaad xasuusato, inta kale aad hilmaamto. Marka please la soco cashirkaanu tartiibkaaga, waqti haysataa. Marka koorsaduna ma kaa cararayso, koorsadan forever haysataa, wixii update lagu soo diro adaa iskale, wax free oo macnaha waxa waaye oo adi lagugu soo diri doono. Marka waxba waqti ma kaa cararooyo, bisha dambe lacag lagama rabo, waa hal mar aad gadatay investment hal mar samaysay, forever wixii lagu soo diro update-na free aa ku helay. Marka tartiibkaaga cashirkaas ka waalin. Haddii marka aan galno qaybta afraad oo qaybtan ah, qaybtan waa meesha juuska iyo macmacaanka iyo mushakalka iyo saa u taqaanidba. Qaybtan waa qaybta xayeysiinta aan create gareynayno. Marka inta meeshan ka horeysa waxay ahayd inaan kusoo diyaarinayo intaadna xayeysiin sameynin. Marka meeshan waa meesha xayeysiinta ka bilaabanayso, campaign levelka, ad levelka, qaabka targeting loo sameeyo, locationka, demographic, lacagta, waxaas iyo dhan aa meeshan ku jiro. Marka meeshan waa meesha aad boqolkiiba boqol aad gelinaysid 2 mar 3 mar 4 mar cashirkiiba haddaa fiirsan kartid inta uu macnaha uu maskaxdaada ugu dhagaayo. qaybtan afraad waa qaybta macnaha xayeysiinta aan ku create gareynayno. Waxaa soo hartay qaybta shanaad. Qaybta shanaad waxaan u wahdaynaa raaliyaada. Qaybta shanaadu macnaha waa qaybtan oo ku saabsan xayeysiintii aan sameynay, maxaa nooga soo baxay, maxaa wix iyo xayeysiimaha macnaha shaqeeyo oo macnaha aan rabno inaan xayeysiin create gareyno. Haddaan rabno sababta aan u create gareynayno xayeysiintan type-ka ay tahay iyo macnaha sirta ku jirto xayeysiinta inay shaqeyso iyo inayna shaqeynin. Haddii video aad sameynaysid, videoga muxuu yahay, qaabkee loo sameeyaa, haddaa wax qoraysid qaabkee loo qoraa. Xataa weliba waxaa ku jiro cashiro oo aniga campaign-ka aniga aan sameeyo oo koorsadan hadda aad macnaha inta gadatay aad macnaha dhegeysanaysid macnaha sababta u ahay oo macnaha waxa aad soo aragto koorsada inaad gadato kugu qasbay, xayeysiinta kusoo qabatay, xayeysiimahaas oo dhan inta dhexgalno campaign waxaa jira marka cashir aan ugu talagalnay meeshaas inaan dhexgalno, kadibna aan tuso step by step u aragtid resultka aan tuso natiijo oo campaign oo koorsada aan ku sameynay oo macnaha natiijada kasoo baxday aad tartiib tartiib u arkaysid. Waa adigoo create gareeyay kadib akhriyay datadii kadib haddana go'aan ka gaaray saas camal. Marka cashirkan waxaan ugu talagalay qof kasto oo markaas beginner ama advance ahaado, qofka raba ahaado, inuu macnaha qof walbo koorsada markuu dhameeyo oo noqdo qof Facebook aad maanta haddii la dhaho waxaan yarkaa iibi, waxay rabaan ahaadaan, ilaahumay dacas ahaadaan ama warqad ahaadaan, inta baxo warqadaas u iibi karo inaad noqoto
macnaha u design gareeya koorsadan. Haddii aad dhammaysato oo waqti aad geliso oo moojilada tartiib aad u akhrisato, waa guarantee inaad saa samaynaysid. Okay, qaybta ugu dambeysa marka qaybta ugu dambeysa waxa waaye cilmigii aad baratay iyo macnaha qaabkii aad ugu shaqaysan lahayd haddaad macnaha digital marketing inaad noqoto rabtid, iyo haddii aad rabtid inaad e-commerce iyo alaaba aad suuq ku iibisid. Marka qaybtaanu macnaha ma ahan 100% waxaad noqonaysaa digital marketing gacanta anaa ka hayo digital marketing aan noqonay maaha. Macnaha waxa waa xirfadii aad taqaanaa. Haddii qur'aan lagu baro ee lagu akhri lagu dhaho, macnaha waa akhri kartaa, laakiin macnaha lagama wado imaama masaajid ka tahay oo taraawiixda dadka ka bixisaa. Waa in lagu soo wacdaa oo lagu dhaho kaale salaada naga bixi. macnaha laakiin haddii lagu dhaho naga bixi waa bixi kartaa salaadii oo quraanka waa akhri kartaa. Marka waa mithaal fiican. Marka haddii marka xirfadii aad taqaanid, aniga marka meeshan ugu dambeysa waxaan ku tusaa qaabka markaas aad customer aad u raadsan kartid iyo markii aad customer ka heshid ama macaamiisha heshidna qaabka wax ugu qabaleed. Marka cashirkan waa cashir oo full oo Facebook aad macnaha ku takhasusisid, qaabka rabtidna wax ugu gadaysid, qofka rabtidna la shaqaysan kartid oo macnaha lugta aad furaysid. Marka waxaan rabaa inaad tartiibkaaga cashirka markaad qaadato moodulka, haddii wax yar kaa qaldan yihiin inaad dib ugu laabatid, haddii waxna kaa qaldanin aad ogaatidna oo markaas aad xayisiinta samayn kartidna aad samaysid. Qaybta ugu dambeysa oo aan rabo inaad taabto waxa waaye qaabka oo macnaha koorsada markaad soo gashid oo kale username-kaaga iyo password-kaaga please hayso, because systemkan waxa waaye VPN oo macnaha virtual haddii markii oo hal password iyo hal email oo kala nooc, laba meel kala nooc iyo wax kasoo baxbaxaan, macnaha waxaa laga yaabaa systemka inuu kaa xiro kadibna markaas xogo baasha ay kululaato oo haddii qof aad la share garaysid wixii ay ka halaabaan. Marka anigana wax promise aan kusii karo male haddii macnaha wax fishy aan meesha ka arko. Marka please login-kaaga iyo detail-kaaga adigu hayso. Marka intaas ayaan rabay inaan kuu sheego. Marka waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Iyo mar kale iyo mar saddexaadna congratulations.